maalmihii ugu dambeeyay waxa caasimada Soomaaliland ee Hargeysa si weyn looga hadalhayay dhacdo ugub ku ah caasimada Soomaaliland ee Hargeysa dhacdadan oo ahayd aroosad la sheegay in gabadhii aroosada ahayd misciinad looga soo dhigay nin la sheegay in uu ku labisnaa dharka dumarka isla markaana iska dhigayay in uu yahay gabadha. Arrintan ayaa waxa loo gudbiyay maxkamadda isla markaana ilaa hadda gacanta ku haysa. Arrintan si looga gungaaro isla markaana loo helo xaqiiqada jirta ayaa waxa uu telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV maanta u guurgalay isla markaana uu soo wareystay qoyskii aroosku ku eedeeyay in ay misciinad uga soo dhigeen aroosadii uu guursanayay nin la sheegay in uu ku labisnaa dharka dumarka. Qoyskan ayaa waxa ay ka jawaab celinayaan isla markaana arrintan ay ku tilmaameen in ay tahay mid lagu aflagaadeynay isla markaana sharaftooda mid looga dhacayo. Daahir oo inta walaasheeda ma garatay waxa dhacday in walaashay reer ay ehelka iyaga ah oo in adeerkay shaqaale u noqotay ayaa dhacday. Shaqaali markay u noqotay ay maxaan ku raayay inaan iska barteen inantii baa leeyahay inantiini waxa la tagay inaan maxaan ku haytiisaan loo garanaynin. Waxaan ku yiri walaalo ii soo qabo baan ku yiri iigu yeedha waan u yeedhay inantii way ii timid Cabdiraxmaan waan la sheekaysto waxaan ku yiri walaal ka waran ninka iqdacada la sheegay waxay tii walaal waan isjeclay waan iskuursanayna ninkii baa lambarkiisa la soo siiyay lambarkii baan garaacay waxaan ku yiri Cabdiraxmaan ma tahay haabigu yiri waxaan ku yiri walaal dambayga ka soo gashay haye la tagaysay baa baan ku yiri inanta la tagaysay walaasheed baan ahay qof weyna looga qurux badan yaroo de laga kaxaysto maxaan ku dhaayay xaafad laga kaxaysto dadkoodii nool yahay ilaahay baa arsaaqada bixiyo oo arsaaqadu waa mawjiid ee walaal u kaalay wal dadkii dhalay baan ku yiri waayahay biigu yiri Cabdiraxmaan wiiga aqbalay uu yimid markii uu yimid Cabdiraxmaan aabahay baan wuxuu aaba laba been xalaal waa la isasiiyay siibu aan siinay ana walaayada soo diray walaalkay buu ku wareejiyay walaalkay hadii ku wareejiyay aabahay inanta markii la meheriyay ayay tagtay aaba sidii ugu yimid aaba ku yiri aaba ma haysto aaba uu kaxeeyay hadii uu raaciyay wuxuu aaba uu naga tagay aaba dardaarankiisa oo nasiinaya aaba dardaarankii markuu nasiiyay anagu dardaarankii baan raacnay 11 qof baan ku tagnay meesha 11 qof aroosada mooyaane 10 kale waan soo noqonay iyo milxisadii waanu ka nimid 11 qof baan ahayn milxisadii aaminaanu ka nimid hadii aan ka nimid milxisada aniga dhalay waa wala inantayda waa tanbaleeg ko way Soomaal wax ku tira boqor war faqaata tabto kor faqaata kolkii alla wax ka siiyo banka qaadin gabadheeda sida ku hooya sidii waa gabadhii lagu hooyay sidii ya lagu kaysay gabadhii saati haddana arrinta dib igu soo noqotay anigu wanaag mooyo xumaanba kama aan talinaynin maalinta beenkiina taaroos kala hooyay ninkaasna wuxuu markii hore noo sheegay inay inanta dirlaa isku guursanayaan dad jaarka ummaduna si aan lumran lagu gaxeeyo biyidi dirlaa inagu guuriyay inanta dirlaa baan ku raacnay anaga wixii aan u qaban karin u qabanay jaarnimo hadalkan ka codsanay markii hore ninkaas naga diiday oo yiri baa leeyay degdeg leeygo hooyo waan gaxaynay 11 qof aan ku gaxaynay inanta marxiisada iyo inanta aroosada oo kaliya kaga nimid hal saac baan daqiiqad gurigeed baan guriga joogin hal saac ma wada joogin 9 iyo barkii barta ka tagnay 10 oo buurana waa soo noqonay haddaan ahaana guriga la iga raaciyay fasaxii taankiira inta taariikhda dambaan waraysi la yeelanay gabadhii misciinada lagu sii dhigay aroosada waxay la sheegtay guriga baan la geeyay gurigan kula noolaa kadibna markaan fiidkiisa xanaan ugu tununknay ma dooran jiray inantan habarka ku ah aan bartay ikan anaga dibaan iska kabin jaxan jiray ma barasho ma baahniyay gida ninkan kharashkan uu ka baxay uu leeyahay kharash ma iga baxoon doonaya yuu ka doonaya ciduu ka doonaya waayo waxaan leenahay halka kharashku halkaas ka doonaysa ala yaqaan anaga kharash ciduu nagu mana rabno asagu baan ka maqlayno la soo dhigay meesha waxaan shaqaday kulama inantii milxiisada ahayd waa taa dumarkii hablihii galbiyay waa kuwa gurigii laga raaciyay waa kan goob joog baan ahaa markii loo feerayay ee la raacinayay ayga wada baxay ninkan la sheegayay yaraniyo naagta lagu sheegayana inuu jiro iyo inuu nool yahay de wax qalbiga igu tira maayo waxaan aqaanana maayo waxaan meesha ka fiiriyay maayo waa sheeko bari dambe oo toonjiga meesha la uu soo baxay oo ninku muxuu ahaa nin mariya xiran baa habeen loo yimid oo waa tiin erinado oo makiiba ahaa inanka waa aragtay ninka la soo dhigay meeshana waa aragtay runta iyo beentana intaas aan iskaga fahmay